عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta la joogaa qoyskii danyartaha ee ku dhibaataysnaa magaalada Buuhoodle ee saddexda caruur ay ka xanuunsanaysay ee kaga dhaceen xanuunka dhimirka caruurtana ku dhacay sidoo kale hooyadii tan hooyo Caasha oo iyana lugta laga jaray xanuun kansarka uu ku dhacay qoyskan markii dadka miidiyaha aan galiday warbaahinta aan galiyay dad badan oo Soomaaliyeed baa runtii aad uga danqaday dadkaasi waxay u soo hagaajiyeen deeq lacageed sidoo kale waxaa la soo xiriirtay hay'adda bisha cas ee gobolka Sool oo iyana ballanqaad adeeg caafimaad u ballanqaaday aan ku horeeyo dadkii lacagta ay u soo diray ugu horeyntii Cali Ibrahim waxa uu soo diray lacag $100 ah Yusuf Xasan Aleeye waxa uu soo diray lacag $100 ah Cabdirasaaq Cabdullaahi Xaaji Cumar Camay waxa uu soo diray lacag dhan $293 oo lacag ah nin muxsin ah oo khayr jecel waxa uu soo diray lacag $50 ah فرحية أحمد قبل هذا وحي صادرت العقد $100 قبل محسن هذا وحي صادرت العقد $100 عبد الرزاق علي أحمد إنه قال دله وحي صادر العقد $50 العقد هذا وحي يسكن نقطي تضاب $193 أو العقد يسكن نقطي ما مضى عيالك قعنت كل هيسا ما مضى لشيء عروت أيام ربنا العقد كوريجيو شدوا كلا وحي لا صو حريتي هايد بشعس قبل كسول وجوهر يقدميها هايد سداكر iyo shaqaalaha caafimaadka ee gobolka Sool bisha cas waxay u ballan qaadeen in hooyadan ay heli doonto lugteedii oo laga soo gelinayo magaalada Hargeysa muddana qaadanaysa shaqaalaha caafimaadka bisha cas aad baan ugu mahadcelinayaa ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro sidoo kale hooyadan waxay soo gaadhay deeq raashin ah oo aan ka soo qaaday bakhaar ku yaala magaalada Buuhoodle deeqda raashinka uu soo diray Xuseen Xaasamatar Culubjoog adeer aad baad u mahadsantahay Xuseenow الله كبركيو وحشد قال وجمع هاد علنا أبتي عبسار حاج عبد الله حاج عمر عمي وأني خير جعل أوضيع أو عاقلة أد بومه سيء هاي يتكسر العقد يقصه قاعد سين لما أنتو أد بومه سيئين هو يدي واحد طلعتي عروتي وقوة صدق ذواك حمصنا يوحقون إحنا كديمركا ولا بدأ يقول لي كبدا كورجن أي دقيقين هوري لبدا كونوا يو شنو يتوانكي إلهي سبحانه وتعالى أنا يدري أول شيء marka hooyo soo dhawo lacagtaas naga gudoon dadkii una duceen muslimiinta lacagta way soo gaadhay raashinka wuu soo gaadhay waxaan u duceynaynaa islaamka dhaktar raashinkii iyo lacagtiba uu noo keenay ilaahay khayr badan ha siiyo dadkan soo caawiyay ee walaalaha ah waan u duceynaynaa ilaahay khayr badan ha siiyo insha Allah bidmillaahi kariim meesha ay ka soo saareen ilaahay wax khayr qaba ha u galiyo dhamaan inta ilagihiin waan wada duceynaynaa ilaa cali dhaktar khayr badan Allah ha siiyo xisaanka xasanaadka Allah ugu bixiyo ilaahay idamkiisa wax khayr badan Allah ha siiyo jannadii aftal u tahay tiina waan haynaa waana loo keenay waka noo gurmaday aad iyo aad buu noogu gurmaday mar horena wuu noo gurmaday imikana wuu noo gurmaday ilaahay khayr badan ha siiyo xasanaadka xisaanka Allah ugu bixiyo khayr badan Allah ha siiyo jannada aftal u tahay roorto waa caruurta xanuunsanaysa waa caruurta halka joogta ilaahay mooyaane waxa uu maqan oo hadeer uu jooga ma jiro islaamka ilaahay baa ilaahay u sakhiray ilaahay khayr badan ha siiyo caruurtana waad aragtaan xanuunkooda waad aragtaan sida yihiin waad aragtaan yahay anigu curyaan baanahay halkaasaan fadhiyaa caruurtuna waa xanuunsanayaan in la soo kaalmeeyo oo ay walaalahayga dalka jooga ama dibadda jooga inay soo kaalmeeyaan baan u baahanahay ilaahay khayr badan hay cas ayaa iigu ballan qaaday lugtii in la ii geliyo sida ugu dhaqsaha badan hadii ilaahay ka dhigo Hargeysa la iiga gelinayo